بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن oo wanaagsan akhyaartana daawatay meel kasto oo dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee gobolka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay meertada 36 ee midowga Afrika maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo saaka dul toogasho ah ku fulisay laba askari xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyay sharciyo muhiim ah dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay madaafiic mar kale maanta lagu garaacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shir degdeg ah oo laga yeeshay amniga magaalada Muqdisho akhbaaraadka dibadda daawadayaal waxa kamid ah dad lagu dilay Mareykanka iyo dambiilihii ka dambeeyay oo la soo qabtay iyo qodobadii soo raaca ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan wararkeena ee u diyaar garooba wararkaasi oo dhameystiran aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa halkaasi oo uu kaga qayb galayo meertada 36 ee shirweynaha ururka midowga Afrika shirweynahan oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo madax kale ayaa looga harinsanayaa dib u habaynta ururka midowga Afrika hirgelinta hiigsiga ururka ee sanada 2063 iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaradu wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada iyo la dagaalanka ka dhanka ah kooxaha argagixisada sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya ayaa maanta kulan ducaad la qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kulankan ayaa labada dhinacba waxa ay uga wada hadlayeen arrimaha geeska Afrika si gaar ah xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa iskaashiga amniga iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyay dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab dowladda Soomaaliya wuxuuna sheegay inay ka taageeri doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Addis Ababa uga qayb galaya shirweynaha midowga Afrika ayaa kulamo kale la yeelan doona madaxda ka qayb galaysa shirkaasi dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka waxa ay xukumo dil ah ku fulisay laba askari oo dad shacab ah horay ugu dilay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Qaasim Ducaale Cabdi oo horay u dilay Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani oo lagu naanaysi jiray Abirimo iyo Xasan Juule Jaakir oo isna dilay Cali Taliya Cariif ayaa lagu oofiyay xadkii qisaasta ahaa ee ay ku xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya labada nin ee maxkamaddu ay saaka xukunka dilka ah ku fulisay ayaa hal maalin oo ahayd 10 January sanadkan waxay Xamarweyne iyo Balcad ku kala dileen laba muwaadin oo noloshooda halgan ugu jiray waxa daawadayaal aad la socotaan wararkeena habeenimo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho iyaga oo ansixiyay sharciyo muhiim ah kulankan oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa waxa goobjoog ka ahaa 150 mudane waxaana dhammaan xildhibaanadan ay ansixiyeen soo jeedinta ka timid gudoomiye Abshiro oo ahayd in xildhibaan walba bishani mushaharkiisa laga jaro 20% si loogu caawiyo dadka uu saameeyay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Turkiga geesta kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa waxaana ansixiyay 148 mudane halka laba xildhibaane ay ka aamuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda Cilmi Maxamed Nuur oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta hindise sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa isaga oo sidoo kale sharaxaad ka bixiyay muhiimadda uu dalku u leeyahay sharcigan oo gaar loo ansixiyo sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya taas oo xildhibaanada federaalka Soomaaliya dhowr jeer oo hore ay ka doodeen waxaana ansixiyay 149 mudane waxaana ka aamusay hal xildhibaan mana jirin xildhibaanna diiday waxaad dhagta ku haysaan waa wararka habeenimo markan faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa tiro madaafiic ah oo mar kale maanta lagu duqeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay wali isku hayaan ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka oo hubaysan wararka ayaa sheegaya in madaafiicdan oo lagu eedeeyay ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen bartamaha magaalada waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay ugu yaraan ilaa hal qof ayaa ku dhintay duqeynta cusub ee lagu garaacay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaana jira
jira dhaawacyo kale oo ka dhashay madaafiicda ku dhacday halkaasi sidoo kale waxaa ka dhashay burbur xooggan oo soo gaaray dhismayaal iyo guryo ay adeegsanayeen dad shacab ah kuwaasi oo madaafiicdu ay haleeshay wararka ayaa intaasi ku daraya in jimcihii shalayto duqaymaha ka socda magaalada Laascaanood ay ku nafwaayeen ilaa 8 qof oo rayid ahaa kuwaasi oo ay madaafiicdu ugu tageen xaafadahooda dhanka kale waxaa hakad galay dagaaladii tooska ahaa ee maalmahan ka socday magaaladaasi Laascaanood inkastoo ay weli is hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac ee ku dagaalamaya magaaladaasi Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka magaalada Laascaanood ayaa galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah kaasi oo sababay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh oo soo gaaray guud ahaanba magaalada waxaana sidoo kale ka barakacay magaalada inta badan qoysaskii deegaanka kuwaasi oo kor u dhaafaya kumanaan kun sida ay shaaca ka qaaday qaramada midoobay si kastaba ha noqotee lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambayn doonto xaaladda magaalada Laascaanood maadaama arrintu ay faraha ka baxday dhiigna uu ku daatay magaaladaasi iyadoo shacabka deegaanka iyo isimadooduba ay taladooda gaar ka dhigteen halka ciidamada Somaliland oo dulmi ku socdaana ay magaalada weerar ku soo qaadayaan weli waxaad la socotaan waa wararkeena habeennimo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Sulub Axmed Firin ayaa maanta shir la qaatay taliyaasha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir qaybaha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed shirka ayaa waxaa looga hadlayay adkeynta amniga guud ee dalka iyo si gaar ah amniga caasimadda magaalada Muqdisho oo mararka qaar ay ka dhacaan falal lid ku ah amniga oo ay geystaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa saraakiisha ciidanka booliska faray in si weyn looga hortago falalka lidiga ku ah amniga lagana feejignaado dhagaraha ka dhanka ah badqabka iyo amniga caasimadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu taliyuhu amray in la laba jibaaro dadaalada lagu sugayo amniga caasimadda dalka Soomaaliya taasi oo uu faray saraakiisha shirkan ka soo qayb gashay in ay indho feejigan ku eegaan amniga caasimadda Soomaaliya wahagaag markana akhbaaraadka dibadda toogasho ka dhacday gobolka Mississippi ee koonfurta dalkaasi Mareykanka ayaa waxa lagu dilay 6 qof xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden mar kale uu baaq ka soo saaray in la adkeeyo sharciyada xorriyadda qoryaha kadib toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday jaamacadda magaceeda la yiraahdo The Michigan State University booliska gobolka Mississippi waxa ay sheegeen inuu nin hubaysan toogasho ku dilay qof ku sugnaa bakhaar ku yaala degmada yar ee magaceeda loo yaqaan Arbakutla kadibna dambiilahaasi uu galay guri u dhow bakhaarka isagoo dilay haweeney sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga wax yar kadib telefishinka CNN ayaa soo xigtay duqa gobolka Badlands in haweeneyda la dilay ay ahayd xaaskii hore ee ninka dilka geystay boolisku waxay raadraac kadib heleen meydka 2 nin oo kale halka meydka qofkii shanaad iyo 6aad oo kale ahaa nin iyo haweeney laga helay guri kale oo u dhow halkii ay toogashadaasi ka dhacday dambiilihii dilkani geystay ayay boolisku qabteen xilli uu ka baxsan lahaa goobtaasi qoraal la soo dhigay barta Facebook ee xafiiska duqa gobolka Date ayaa lagu sheegay in ninka toogashadaasi geystay lagu magacaabi jiray Richard Dale Cram oo 52 sano jir ahaa kaasi oo ka soo jeeda gobolka Tate County oo dhanka waqooyi galbeedka ka toosan gobolka Mississippi eedaysanaha waxa uu haatan ku jira gacanta booliska isaga oo lagu soo oogi doono dilka heerka koobaad ee magaciisa loo yaqaan first degree murder gudoomiyaha gobolka Mississippi Tate Reeves waxa uu qoraal Twitter ah ku sheegay in lagu soo wargeliyay warbixinta dhacdadaasi toogashada shalay oo Jimco ahayd dhacday waxa ku soo beegantay maalin kadib markii nin hubaysan uu weerar ka geystay kambaska jaamacadda ku taala gobolka Michigan ee waqooyiga Mareykanka halkaas uu dambiilahaasi ku dilay qof dhowr kalena uu ku dhaawacay geesta kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay qoraal ka soo saaray toogashadaasi waxa uu ugu baaqay aqalka cad ee Congress-ka inay haatan tallaabo ka qaadaan colaadaha hubaysan waxa uu tilmaamay in 48 maalmood ee la soo dhaafay ee sanadkan inuu qaranka Mareykanku uu horay ula daaladhacayay dhibaatada ugu yaraan 73 toogasho wadareed si kastaba tan iyo sanadkii hore 44,000 oo dhimasho la xiriirta toogasho ayaa waxa ay ka dhacday dalkaasi Mareykanka daawadayaal wararkii habeennimo ee aad kala socoteen kulmiye TV intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa intaynu warar caynkan oo kale ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo